sida aad sawirka ka aragto ama aad qoraalka ka aragto waxa si sabaraysa oo ku sameynaya ama sida oo fanaanka dhanka community-giisa ama community-giisa oo ugu soo sheergareeyay taageerayaashiisa ama dadka dhanka fankiisa markaas uu soo wado hees cusub heestaas oo ah heestiisa ugu horeysa dhihi karna oo dhanka muuqaal ahaan loo qabtay ama clip ahaan loo duubay hees waa soo saaray heestaasna waa hees laakiin lyrics ahaan ama si ahaan sidaas loo soo galshay dhanka YouTube-ka waana wax 2 days ama 3 days oo yaraan ka hor lagu soo baahiyay dhanka social media laakiin just tan way ka duwan tahay heestaas waana farqi fara badan baa u dhaxeeya taas iyo tan si muuqaal ahaan ayaa loo duubay sidaad ka arki karto ama sida ku socdo muuqaalka editing xataa muuqaalka la duubay laakiin editing uu ku socdo editing-kana wuxuu iska qaadan karaa waqti kooban ama saacado kooban haddii uu yahay qof gacan fudud ama wixii ku qaban karo ilaa 3 hours ilaa ugu yaraan 4 hours ilaa 5 hours waxaan dhihi karnaa waa muuqaal just ka bedelan muuqaaladiisii hore ama dhanka heesiha hore oo soo duubi jiray dadka badanaa waxay ku dhaleeceyn jireen ama dadka xiiseeya muuqaaladiisa ama dhanka fankiisa in oona haysan kaameramaan aad iyo aad u fiican ama kaameramaan talent badan u leh in muuqaal qurux badan heestaas laga duubo ama clip ahaan loo qabto sida fanaaniinta raabarka oo dhanka caanka ha noqda ama dhanka caalamka muuqaalada laga duubo ama dalalka xitaa just dariska nala muuqaalada ay duubaan oo fanaaniinta raabarkooda ugu caansan ama ugu shacbiyada badan in muuqaalada yihiin muuqaalo aad iyo aad u talent badan aad iyo aad u qurux badan markii aad daawanayso ama markii just aad fiirsanayso aan ku caajisaynin ay heestii aad ku soo ceshan karto isaga fanashan mabo waa iska macquul heesihiisa oo idil ma ahan kuwa badana dhanka muuqaalka hadii la fiirsho kuwa muuqaaladooda 100% laakiin heesihii dambe oo just dhankaas heestii Buntland oo ku soo qaadaysa heestaas hit bay 100% sida ay dadka community-ga u qorayeen in ay just muuqaalada lamid loo baahan marka waxa dhigi karnaa isagoo tagay dalka Zambia waxa ka filan kartaa ama just aad dhihi kartaa in oo sameyn doona ama isbedel fara badan oo ku sameyn doona dhanka muuqaalada mar walba waxa heesta qarxiyo ama heesta u yeelan karo in ay views fara badan sameyso ama ay wax aad u fara badan sameyso ama lacag aad u fara badan ka sameyn karto in muuqaalkeeda hid yahay 100% ka caawinaysa in uu qof walba heesti uu soo sirjin karayo oo qof walba heesti uu soo raadiyo marka waxa dhigi karnaa wuxuu u soo wadaa dadkiisa ama taageerayaashiisa qaaska ama dhanka fankiisa xiiso ama dhanka raabkiisa xiiseeyo heesi hore ka duwan ka lahan fiican ka muusika fiican ka eraya fiican ka muuqaal fiican muuqaalka 100% waa la isdhihi karaa heestan sida dadka ay badanaa isugu laayihiin in ay heestan ka muuqaalo fiican ama ka quality sareyso